maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa soo raacay koox dhalinyar ah waxayna yimaadeen goob ka mid ah goobaha lagu dalxiiso si ay u soo qaataan hawo daray ah kuna faraxsan jawiga meesha balse kayntan muddo 20 sano ah xayiraad ayaa saarnayd oo dhawaan ayaa dib loo furay waxa kaliya ku nool goobtan ama kayntan oday waayeel ah odaygii ayay si kadis ah ku kulmeen dhalinyartan wuxuuna uga digay kayntan ay hore uga baxaan intay iftiinka tahay wayna ku jeesteen odaygii oo cadhaysan ayaa iskaga tagay dhalinyartiina halkii ayay iskaga wateen dheeshoodii iyo farxadoodii kayntiina habeenkii ayaa ugu damay iyo dhalinyartiina talo maxaa qabsan doona محمد نجح في 60 دقيقة بس هاديك ديك سمرت هاديك صاحبي ماشي انو شدك دقوقه بحنا وياه كنت نوي وينت صاحب قرتي ما قبلكم ماشي هادو نوغو دحاي adagta sida waagu nagu bariyay inuu kayntan aynu ka baxno way adagta inuu waxaan ku jirnaa waa bartamiin ma garanayo meel laga baxay jaatoona aynu u socono soo aad kartay ma bal xal sanay maxaan sameynaa لكن هو يعني واحد ان شاء الله كبحنا
نجح 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 qofkan adduunka ugu jeclaa sidaas oo intee waxaan kula waayay asxaabteedii ku qaaligaay caqliga midna bitana keenta ka badan anigoo ninka gacanta ku dhigay niman arsan oo kooydi ku jira soo soco وقصوا أنا هذا بنسو دمو تيجي كل مرة أفرح بين الشام واحد من الستة عالكي واحد من الستة كيجي أما عبا يتلقى بحصر زعرامي